الحمد لله ودرينكيga lama soo koobi karo aad ugu faraxsanahay inaan kaalinta ku imtixaanka dawladda sanadkan 2022 la sameeyay inaan kaalinta ku galo aad ugu faraxsanahay way Khalid ma filaysa in natiijadan ay ku soo bixi doonto waa filay waa natiijada horta natiijo fiican waa filay markasta inaan kaalin galo oo ku rajeynay marka waxa filay waa helay way ma lagu sheegay marka in kaalinta ku wada gashay maadaama munaasabadan ay goobjoog u tahay malii sheegin kaalinta ku wada gashay ma lidin laakiin waxa la wasaaradda rabto wasaaradda ku soo wacday imowle holka wasaaradda imow way marka Khalid iskuulkee ka soo baxday iskuulkaaga maanta muxuu kaaga dhiganayaa dareen ahaan maadaama kaalinta ku wada soo gashay guud ahaan ardayda Soomaaliyeed iskuulka wax soo baxay iskuulka iftiin warta nabada aad iskuul aad wanaagsan waaye oo waxbarashadiisa ay sareyso iskuulada ugu sareeyo waaye ma sha Allah marka maxaa rajeynaysaa maadaama hadda aad kaalinta ku soo gashay waxaan rajeynayaa inaan hore u sii socdo oo waxbarashadii heerka gaaro insha Allah way mustaqbalka maxaa jeceshahay noqotay maadaama hadda dugsiga sare dhamaysay mustaqbalka horta waa fakultiyo badan oo doorin hadii waa adi ugu dambe waxa rabaa ugu yaraan inaan noqdo qof isku tiirsan oo ganacsi asal leeyahay maamushto way hay yawm ma hadcinaysaa maadaama fursadan qaali ay kugu tahay oo wax badan aad soo joogtay maantana kaalinta wada gashay Allah subhanahu wa ta'ala uma hadcilna wa mahadcelin asi u sugnaatay ثانيا حاول معدلنا والدكيga oo markastii garab taagnaa ثالثا macallimiintii ugu soo dadaashay cilmigan amaanta kaalintaas ku galay soo bartay way marka ugu dambeyntii ardayda kale saaxiibada ah ee asaagaaga ah ee aad la jeclaanayd sida oo kale heerka inay soo gaaraan sanadada soo socda maxaad ugu baaqaysaa waxa ugu baaqayaa inay dadaalaan oo isdhiganin dad qaar waxay aaminsan yihiin waxbarasho imtixaanaadkan lama saxo saan waaye marka waxaas niyadaada ka saar ilaahay tala saaro ilaahay markasta uu garab taagan yahay dadaala ku lahaa